waxaan leenahay alxamdulillaah arrintaan la kulmisay oo Samtel waa ilaahay baa ku mahadsan inay waqtigan iyo ummadaan meesha isugu timaado Samtel hadee anu imada ma ka aqaanay hadda maanta kale dhihmaayay rag badan oo saaxiibadaya waa ka shaqeeyo ya maanta maalin loo tamar la furay waxaan war shaqada igu badan anu aad baan shaqada igu badan maanta iga daay waxa la yiri suurgal noqon mayso laakiin maanta inaan imaadana waa ku qasbanaa Samtel waxa weeye shaqo badan bay qabatay dalka intii ka shaqeynaysay shirkada noocyo badan isugu jirana waata waxaan leenahay maanta fursado hore looga sugaayay way furtay sida ay sheegeen isimadu haddii hantidaada oo waxa weeye ama bangi ku oolay ama dukaan bakhaar ku oolay haddii lagu yiri war adoo gurigaaga joogo shaqadaada wadanaya kaalay ha lagu shaqeeyay waxaan u maleeyay fursada ugu fiican weey qof la yiri adigu shaqadaada qabso reerkaaga maamulo dukaan markaa fudho inaa ka shaqeyso u baahan yahay ganacsiga meelaha ka qaar hadaa moodeen aniga laftay ganacsiga ku jiri jiray ganacsiga la furaa wuxuu u baahan yahay inaa ka shaqeyso mas'uuliyad u doonto la ilaaliyo laakiin company hadaa ku darsato oo sharcigaaga aad dhigato de waxa uga baahnay shaqadaada wax ka habsaamay ma jiraan waan lagu shaqeynayaa marka aad baan u bogaadinaynaa waxaan leenahay Allah barakeeyo boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa waana wada shaqeynaa waana la sii shaqeyn doonaa